magaalada Qardho ayaa habeenimada xalay waxa ay noqotay hal mar meel ay biyo dhex socdaan taasoo burbur hantiyeed geystay sidoo kalena ay jiraan ilaa iyo hadda qof aan nolol iyo geeriba lagu haynin. Qardho maahan markii ugu horeysay oo daad noocan oo kale uu geysto khasaare naf iyo maalba leh. waxay xilli kasta oo roobab mihigaan ay da'an ay noqotay mid marti gelisa daadad dhex qaada magaalada oo khasaare xoog leh u geysta. daadadkan ayaa sida la sheegay waxaa sababay iyadoo ay dadka xireen goobihii ay biyuhu ka bixi jireen oo marinkooda ahaa lagana dhisay guryo waaweyn kuwaasoo sabab u noqday in ay biyuhu xawligoodu meeshii ay magaalada dhaafi lahaayeen magaalada dib ugu soo noqdaan oo dhibaato xoog leh markasta ay ka geystaan. sida ay maaragtay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka idin sheegeen qasaarihii xalay dhacay ee fatahaadii dhacday alxamdulillah ilaahay waa fududeeyay sida aad maqlayseen wax geeriya oo ilaa hadda la xaqiijin karo la sheegay ma jiro hal nin oo la laayahay oo isagana baadigoobkiisa uu socdo dadaaladaas baa socdo lagu furaayo wadooyinkii go'ay ee biyuhu maaragtay kala gooyeen xalay magaaladu waa kala go'need laakiin alxamdulillah hadda biyihii waa istaageen xoogaa yaroo iska maaragtay weli socdaa waa jiraan laakiin kala go'naanshihii sida xalay ay ahayd magaalada ma aha qasaarahaas dhinaca ganacsiga iyo gaari waa jiraan laakiin qiimeyntiisaan sameynaynaa nuxurka ugu weyn oo muhiimadda waxay tahay hadba wixii soo kordhaa idinla wadaagaynaa wax hadda culaysa oo ziyaado ah oo qayladhaana oo aan diraynaa ma jirto oo aan ka ahayn in ma aragtay cirku cusub yahay roobku uu da'i karo xilli kasta dadka ma aragtay meelaha biyo mareenka ah degan inay iyaguna ka baxaan culayskana ilaahay naga fududeeyo tan ugu muhiimsan oo aan dirayno waa inta kale shaqada waa socotaa. waqtigani xigay oo khasaare aad u tira badan ay biyuhu geysteen ayaa waxaa jiray dakhli xoog leh oo loo ururiyay sidii dib loogu maareyn lahaa khasaaraha daadadkaasi ay geysteen. dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni uu sheegay in lacagtaasi ay weli khasnad ku jirto oo ay hayaan. dad badan ayaa isweydiiyay sababta weli lacagta kayd loogu hayo oo loogu maareyn waayay biyaha wadooyin ay ka baxaan u heli lahaayeen waxaana dadka qaybtood aaminsan yihiin in aysan jirin khasnada dawladda lacag weli ku jirta oo ahayd lacagihii dadkaasi khasaarihii xoogga lahaa ee daadkii sanadkii hore geystay lagu maareyn lahaa. waxaana ay dad badan isweydiinayaan sababta ilaa yeeminka loo maareyn lahayahay inay biyuhu dhaafaan oo ay Qardho noqoto mid iyadu markay roobab mihigaana soo muuqdaan mid walwal ay shacbigu ku jiraan habeenkaas oo idil.